wanaagsan saaxiibayaal meel ka soo joogtaan. Halkan waa janaalka 24 Somali TV. wararkeena ugu door korona waxaa kamid ah wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ayaa madaxda maamulka Hirshabeelle kala hadlay xal u helidda kacdoonka magaalada Beledweyne. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa saacadaha soo aadan bilaabaya kulamo uu la yeelanayo qaar ka mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayaa kulamo amniga ku saabsan waxa uu ka wadaa degmada Doolow ee gobolka Gado. Dowladaha Qatar iyo Sacuudiga ayaa sanado kadib maanta dib u soo celinaya xiriirka labada dal. markab laga leeyahay dalka Isbayn ayaa 265 muhaajiriin Afrikaan ah ka soo badbaadiyay xeebaha dalka Liibiya. waa talaado waa 5 bisha January sanadka 2021 waxaan noo waramaysaa Farxii Xuseen Cali. wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ayaa madaxda maamulka Hirshabeelle kala hadlay xal u helidda kacdoonka magaalada Beledweyne. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya. ergiga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa saacadihii la soo dhaafay xaaladda cakiran ee gobolka Hiiraan kala hadlay wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya General Mukhtaar iyo madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Danjira James Swan ayaa mas'uuliyiintaasi kula xiriiray qadka internetka waxayna ka wada hadleen xal u helidda khilaafka hareeyay maamulka cusub ee Hirshabeelle gaar ahaan xiisada ka jirta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. kulamada James Swan uu la qaatay wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka iyo dib u heshiisiinta General Mukhtaar Xuseen Afrax iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa sida la sheegay aad loogu gurfeeyay talada ugu haboon ee lagu soo afjari karo xiisada salka ku hayso diidmada madaxda cusub ee Hirshabeelle ee ka taagan gobolka Hiiraan. inta ay socdeen kulamadaasi James Swan ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda uu leeyahay wada hadal dhexmara dhammaan danayaasha siyaasadeed ee Hirshabeelle si loo helo dib u heshiisiin dhab ah. sidoo kale James Swan ayaa madaxweynaha iyo wasiirka u ballan qaaday in qaramada midoobay ay diyaar u tahay inay taageerto dadaaladaasi lagu xalinayo khilaafka ka jira Hirshabeelle tan iyo markii maamulka Hirshabeelle loo doortay madaxweyne Cali Guudlaawe. waxaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ka socday dhaqdhaqaaqyo lagu diidan yahay maamulkaasi iyadoona mararka qaar ay magaaladaasi ka dhaceen banaabaxyo rabshado watay. go'aanka ugu adag oo ay qaateen reer Beledweyne ayaa ahaa in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe uusan tagin magaaladaasi halka isagana uu doonayo in lagu caleemo saaro. doorashadii Cali Guudlaawe ee Hirshabeelle kadib waxaa Hiiraan laga aasaasay jabhad hubeysan oo saldhigeeda ugu weyn uu yahay deegaanka Ceel Jaalle waxaana hogaaminaya sargaal lagu magacaabo Jarnaal Abuukar Xuud oo aad u diidan madaxda cusub ee maamulkaasi. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa saacadaha soo aadan bilaabaya kulamo uu la yeelanayo qaar ka mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya si xal loogu helo caqabadaha ka taagan hanaanka doorashada ee dalka. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa kulan uu toddobaadkii hore qadka Zoom-ka kula yeeshay wakiilada beesha caalamka waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu la fariisto cid walba oo tabasho ka qabta arrimaha doorashada. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii magaalada Garowe ee gobolka Nugaal shir 3 geesood ah oo ay ku yeesheen musharaxiinta doonaysa xilka madaxweynaha Soomaaliya, gudoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare, madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland iyo Galmudug lagu go'aamiyay in shir degdeg ah la isugu yimaado kaasi oo lagu xalinayo khilaafka taagan. doorashada dalka ayaa la sheegay in looga baahan yahay in ay noqoto mid xor oo xalaal ah isla markaana lagu wada qanacsan yahay. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayaa kulamo amniga ku saabsan waxa uu ka wadaa degmada Doolow ee gobolka Gado. Cabsitaar Xaaji Cali ayaa ka waramaya. taliyaha ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Taliil Biixi Shariif Al-Arwaax oo shalay galinkii dambe gaaray degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa dhammaan ciidamada ku sugan gobolka Gado ugu baaqay inay qayb weyn ka qaataan u kuurgalida iyo dardargelinta ammaanka guud ee deegaanadaasi. waxaana ugu baaqay ciidamada dawladda ee halkaasi ku sugan in ay u diyaar garoobaan howlgalla dib u xoreyna oo laga bilaabayo gobolkaasi. shacabka ku nool deegaanadaasi ayuu ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada dawladda ee ku sugan gobolkaasi. hadalka taliyaha ciidamada dhulka
xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa imaanaya kadib markii galinkii dambe ee shalay uu gaaray degmada Doolow isagoona kulan looga hadlayay dib u furidda garoonka degmada Doolow la qaatay maamulka gobolka iyo kan degmada Doolow ee gobolka Gado. dowladaha Qatar iyo Sacuudiga ayaa sanado kadib maanta dib u soo celinaya xiriirka labada dal. Axmed Maxamed Ibraahim oo warkeena soo saaray ayaa faahfaahinaya. waxaa la shaaciyay in guulo waaweyn laga gaaray wadahadaladii uu Mareykanka gadaal ka riixayay ee muddooyinkii dambe u socday dowladaha Qatar iyo Sacuudiga oo ku kala tagay khilaafkii adkaa ee ka dhex qarxay wadamada Khaliijka bishii Julaay sanadkii 2017 afar dal oo Sacuudiga ugu horeeyay ayaa go'doomin dhan walba ah ku soo rogay dalka Qatar balse arrintaasi waxaa la shaaciyay in heshiis hordhac ah laga gaaray isla markaana maanta lagu kala saxiixan doono dalka Sacuudiga heshiiska sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa laga soo xigtay in talaadada maanta ah heshiis rasmi ah oo colaadaasi lagu soo afmeerayo lagu kala saxiixan doono dalka Sacuudiga sida ay baahisay wakaalada wararka ee Reuters. sarkaalkan oo aan magaciisa la sheegin ayaa si rasmi ah u sheegay in khilaafkaasi hadda xal laga gaaray wax walbana ay ku soo laaban doonaan sidii ay ahaayeen sanado ka hor. wasiirka arrimaha dibadda dowladda Kuwait Ahmed Nasir Al-Sabah ayaa dhinaciisa xaqiijiyay in heshiis rasmi ah laga gaaray go'doomintii muddada sanadaha badan lagu hayay dalka Qatar kaas oo madal weyn lagu kala saxiixan doono saacadaha soo socda. dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa xayiraad diblomaasiyadeed mid ganacsi iyo mid safar ah ku soo rogay dalka Qatar bishii Julaay sanadkii 2017. xiligaas waxay ku eedeeyeen dowladda Qatar inay taageerto argagixisada balse Qatar ayaa iska diiday eedahaas waxayna sheegtay in xayiraadahaasi lagu curyaaminayo dhaqaalaheeda iyo weliba madaxbanaanideeda. markii goodan la geliyay Qatar waxay garab istaag ka heshay dowladda Turkiga oo aad uga hortimid dandaansiga ay ku hayeen dalalka kale ee Khaliijka waxa ayna dalkaasi yar ee hodanka ah ay geysay ciidamo ka difaaca saaxiibadiisii hore ee Khaliijka. sidoo kale dowladaha sida weyn u garab istaagay Qatar waxaa ka mid ahaa Iiraan oo ay siyaasad ahaan arrimaha bariga dhexe isku aragti ka yihiin Turkiga. tan iyo waqtigaas diyaaradaha Qatar ma isticmaali jirin hawada wadamada go'doomiyay sidoo kalena xuduudaha dhinacyada dhulka iyo badda ay la wadaagtana la isagama gudbi karin. hogaamiyaasha wadamada Carabeed ee Khaliijka ayaa la filayaa in talaadada maanta ah ku shiraan Sacuudiga Arabia halkaas oo ka dhici doono shir sanadla ah kaas oo la filayo in lagu shaaciyo heshiiska lagu soo afjarayo khilaafka Qatar iyo waliba Sacuudiga. markab laga leeyahay dalka Spain ayaa 265 muhaajiriin Afrikaan ah ka soo badbaadiyay xeebaha dalka Liibiya oo ay ka ambabaxeen kadib cilad ku timid doontii ay la socdeen oo keentay in ay u qayla dhaamiyaan markab Spain laga leeyahay oo ku sugnaa meel aan ka fogeen xeebaha Liibiya. dadkaasi ayaa la tilmaamay in ay damacsanaayeen in ay ka ambabaxaan Liibiya ayna gaaraan dalka Talyaaniga.